إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ساكا أو سبتي أي تهي بش جماد الآخرة لبي لباتن كن أفر بقول يسغالي صدق هجرية وحين بإذن الله تعالى بلا بدونا كتابك اللي يناهضه المختصر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وكتاب كوبا وكور رمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلمامه سي أخلاقه سي وحموه مين أغانو مركا وقوه الرئيبة كتاب كان أين ما أنت بلوني يا كتاب كيني ثلاثة الوصول كينو سعودي انتو وحي نقون دونان مالمهن دنبه سيرة النبي قول عليه الصلاة والسلام وكل وحي كور رمي دونان سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم كان واصفاتك رسولك يتلماميثة رسول 30 وحكوا رمي أصل كيف قدم بيوه ما نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبي محمد بالغ الرمية معلمها صوص عذاب بإذن الله سيدا وجد مركز تومك عن النبي صلى الله عليه وسلم أين مقلناه وأين نكسل لنا رسولك عليه الصلاة والسلام ويستلق رسولك اللقوس اللي واجب صلى الله عليه وسلم سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم تعريف كيدي قيعتان كيدو إنه يمن دونا شمائل وحليلانا وإنه يمن دون بإذن الله سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم ومنهج دميسترا وكور رمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نولشيسي يقفك مسلم كاهي وحيو كديفي oo inuu rasuulku ku daydo عليه الصلاة والسلام sidoo kale inuu ogaado nolosha rasuulka عليه الصلاة والسلام sidoo kale inuu ogaado nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qaabku hadli jiray qaabku fadhiisan jiray qaabku siixan jiray iyo wixii la mid ah sidoo kale qofka daaciga ah dadka dacwad ugu baaqaya wuxuu helayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam dacwadiisa qaabka yahayd qofka cid tarbiyadeynaya ama ubad wuxuu dhigaya ama dad hogaaminaya wuxuu ka helayaa isna nidaam sugan oo aad u daqiiq ah sidoo kale qofka siyaasadu ka baranaya qofka caalimkii cilmigu ka baranaya qofka zaahidkii macnaha zuhdiga xaqiiqiga buu ka helayaa qofka wax iibinaya ama wax soo iibsanaya wuxuu helayaa qaabkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee saxda ahaa qofka muslimka ee la itixaamay ee ibtilaa ku dhacay wuxuu helayaa qofka mubtaligii sidoo uu sabrayo iyo wuxuu qabanayo sidoo kale ummadda dhamaateed waxay baranayaan aadaabta sarsare iyo akhlaaqda la mahdiye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam aqeeyisi saxda ahayd wuxuu yiri ali ibn al-hasan kunna nu'allamu maghazi an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama nu'allamu surata min al-qur'an waxana la bari jiray buu yiri rasuulka duulaamadiisii iyo siiradiisii sidana loo baro suurad qur'aana sidoo kale imaam az-zuhri rahimahullahu ta'ala cilmiga maghaziga wuxuu ka warramay wuxuu waa cilmu al-aakhirati wad-dunya waa cilmiga adduunyada iyo aakhiro maqaasida siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay leedahay waxay tahay awalan in rasuulka lagu daydo alayhi salatu wasalaam sida uu geed ba ilaahay suuratul ahzab aayada 12 waxa uu ku yiri laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana sidaba waxa idin ku sugan rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan wali ilaahay wuxuu raaciyay liman kaana yarju allaha wal yawmal aakhir wa dhakara allaha kathira ka ilaahay rajaynaya inuu arko maalinta qiyaameen badbaado rajaynaya ilaahay badan xusu subhanahu wa ta'ala sidoo kale suuratu nuur aayada afrikotanaad ilaahay wuxuu ku yiri wa in tutiicuhu tahtadu haday nabi maxamed maqlaan alayhi salatu wasalaam way hanuuni doonaan sidoo kale suuratu nisaa aayada 8aad iyo suuratu ali imran aayada 11aad waxa ilaahay ku warramay subhanahu wa ta'ala nabi maxamed ku dayashadiisa qiimaha ilaahay sidoo kale qofka muslimka iimaan buu ka ziyaadsanayaa markuu ogaado sunnada rasuulka alayhi salatu wasalaam iyo siiradiisii waxyaabo rasuul ka warramay dhici doonee dhacay markuu qofku arko
iimaan buu ka siyaasanayaa waxyaabaha dhacay waxa kamida in rasuulku xasan ibn ali uu yiri in ibni hada sayyidun wa inni arju an yuslih Allah bihi bayna fi'atayn min ummati inan kaygaas waa sayyid ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu laba kooxood waaweyn ku kala badbaadiyo waa kii kala furtay kooxdii muawiya iyo kooxdiisii uga tanaasulay muawiya ibn sufyaan xukunka sidoo kale rasuulku wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam aakhir zamankan ima doonaan dad sinada iyo khamriga iyo xariirta wax xalaashada heesahana tunto la halaagi doono taasina way timid halaagi u baahaday dad heesaha xalaashadii khamriga way haynaa sidoo kale waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay in dadku ay masaajidda ku tartami doonaan oo isku faani doonaan taana waynu haynaa oo waynu aragnay xaqiiqo aynu taabanayna weeyaan siirada rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxay leedahay khasaa'is waxyaabo ay gaar kala tahay nololaha dadka kale oo dhan oo marka koobaad wax ka qarsoomay jirin waxa laga yaabaa dadka qaar kood noloshooda waxyaabo ka qarsooma laakiin siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wax ka qarsoomay jiro shay kasto rasuulku sameeyay ha yaraada ama ha weynaade waa la inoo soo raro waa la inoo sheegay ilaa gaalada qaar kood ay ka qoreen rasuulka sallallahu alayhi wasallam siiradiisa meelo kamida arrimo cajiiba oo laga yaabo xataa qof muslim inaanu aad ugu fiirsanin nin gaalo faransiis oo kaafira wuxuu yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi xaq u ahaa waxaan ku garanayaa buu taa inuu nabi xaq ahaa shay kasto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku dhacay haday canaananayo tay iyo haday ammaan la amaanayo tahayba waa la soo gudbiyay oo waa la sheegay dabta wuxuu yiri sidee u dhici kartaa inuu qof wax isaga didku oo ka soo horjeeda ummadda u soo gudbiyo diin uga dhigo hadaan saxayn oo aan xaq ahayn qaarkoodna waabay ku islaameen rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhrinta akhriyeen siiradiisa waxa kale oo khaas kala tahay nololaha dadka kale oo nabi maxamed siiradiisa alayhi salatu wasalaam run iyo amaano waxa loo soo raray si amaano ku jirto oo run oo sidqiya wax been may dhexgelin waa laga sifeeyay sidoo kale risaalada nabi maxamed ay caam tabe ku tusaysa alayhi afdal salatu wa tamm tasliim sidii ilaahay bayni wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin sidoo kale nabiga rasuulka noloshiisii jawaanibteed oo dhan way koobaysaa waxay ka tageysaa ma jirto sidoo kale waxay inoo sheegaysaa siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam inaanu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam awoodda bashariya ka baxsanay inuu bashar yahay rasuulka maxamed alayhi salatu wasalaam dawaabid bay leedahay siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu ogaado marka koobaad waa fahamkii saxda ah ee islaamka la fahmayay sidoo kale siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay ka baxaysay ka duulaysaa yaqiinta qofka muslimkii uu ku faanayo islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo nabigiisa maxamed alayhi salatu wasalaam waxa kale oo kamid ah dawaabida siirada rasuulka lagama qaadan karo ahadiis dha'ifa waxa laga qaataa kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka alayhi salatu wasalaam sidoo kale siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam aqeedada saxda ah aqeedada aan saxda ahayn bay noo kala sheegaysaa waxa muhiim ah in la isticmaalo mustalahaadka sharciga ah iyo weeraha sharciga marka rasuulka laga warramayo alayhi salatu wasalaam qofka muslimka ah markuu nabi maxamed ka sheekaynayo ama siiradiisa amaba anbiyada kale nabi maxamed aan ahayn sallallahu alayhi wasallam waa inuu maro weeraha sharciga ee la isticmaali karo waa inuu iska ilaaliyo weeraha maskaxdiisa ka soo baxaya ee isagu iska isticmaalayo iska oranayo sidoo kale waa inuu qofka muslimka ah siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu ka sheekaynayo uu xadido hadafka uu ka leeyahay taasina waxay tahay at-ta'assi bi muhammadin alayhi salatu wasalaam in nabi maxamed lagu daydo waxa kale muhiim ah in la ogaado dawaabida inay kamid tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam siiradiisu waxay u qaybsantaa laba shay aynu ku dayanayno in kaga dayanayno nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo shay isaga khaas u ah sida guurkiisii rasuulka alayhi salatu wasalaam afar wax ka badan oo guursanayay iyo wixii lamid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam wixii laga dayanayay gaarka waa laga dayanaya wixii aan laga dayanayn ee isaga u khaas ahna waa la tilmaamaya oo waa la sheegaya oo la oranayo shay kasta halkan rasuulka laga dayanaya alayhi salatu wasalaam xaalada rasuulku sallallahu alayhi wasallam saddex xaaladood bay ahaayeen xaalado jibiliya waxyaabo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ku sifaysnaa oo ku abuurnaa iyo xaalado khaas ku ah nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xaalado la yiraahdo al-xaalatul bayaniya waxyaabo wax ku cadeynay waxyaabo rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagu iska abuurnaa ama uu jeclaaba jirtay ama tolkii ay sameyn jireen sida timaha dheer ee rasuulku la baxay mararka qaar kood alayhi salatu wasalaam timuhu rasuulku kala farqiyay alayhi salatu wasalaam halka uu ka kala jeexay iyo dabidu rasuulku timihiisa dabay mararka qaar kood sallallahu alayhi wasallam waa wax u gaar ah bal rasuulku sallallahu alayhi wasallam cuntooyinka qaar buu diiday oo dadka u xalaala oo yiri qoomkayga iyo tolkay ma cunaan rasuulka waxa loo soo dhigay dabbi
حويان ضبي لا إله ذو تذكر غاركود مسلوقلي بيكو فسر لكن مسلوقلي معها ويو إيك تيسيب يشبه هذا اللي يكوي كقابنتي وأنا شيء حلال والله عنه وأن وابي يسون قفكو كل انتقال لهين يدو لصوشي لما رسولك لصور دي عمل سود دبي عمبو رسولك يسيدي كدبنا صحابيات أمهات المؤمنين كم إذا واحد كنت رسولك واحد سين يستانو شيء وحياي كذب رسولك والله شيء واحد يقول والضبي رسولكم صلى الله عليه وسلم كلوا فإن قومي لا يأكلون إذن كعونة تلكي معنا وتصمر ذا إلى هذا مجينا شيء رسولك صلى الله عليه وسلم مو عنين خالد مريد وماشي في الدي أو قريشنا كم إذا أيا عني أو تلكي عن كرين وحيابا رسولك صلى الله عليه وسلم خاص أو أنا وسيد جور كان شجني أفعاش بياني جهيدنا ورسولك صلى الله عليه وسلم وحيابا وحكوا عديني صلاة ديسي حجكي وكرسولك ورسلوا كما رأيتمون يصلي سيدادي أركتين أنا وتكني وتكذا وترسولك صلى الله عليه وسلم ويري خذوا عني مناسككم أفعاشي إن حجك الثمين إنسان إذا قاتل رسولك عليه الصلاة والسلام كتابك أيون بلونه بإذن الله كتابك وحى قري شيخ الله ينهضه شيخ الإسلام مركز اللي وحى قرينا ما هينو مختصر كان يسوي روري شيخ الإسلام ابن تيمية وحى لقى دحسي كتابك الله ينهضه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جوابته الصح ده إلا سينا يعيد دينتي النبي عيسى بدا شيء سببته كتابك هو اللي فينا وحي هيد نين كريستيان كاملة أيا وحو قري وراقه وكو أمانة دينت كريستيان ودينت الإسلام كو كنا لعيني وولا علماء الإسلام كيما جوابي كران كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كان يرى مختصر كاين ولا نهين أخريه إنه كتاب كان لقى سو سيبوين بو قري وتدبوا مجلدات أما تدبوا جزء وكل الدنيا إنما كريستيان كان وحال الطابع كتابك كن أفر بقولي سجالي تمكي جديدة أو كوبيجان كن سجال بقولي سجالي سجاشنكي دار عاصمة طابعضي يسوي تدبوا مجلدوده أو نشر الصيد مرر كلنا وانا طابعي نسخ كلنا والليه شيخ الإسلام ابن تيمية بحر بوها بحورته كمذا وحبين كتل ما مدونا سيريسين ركوبا مرضم به وحيدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وحكوا بلاب يا مقع إلهي الرحمن إله نحريس كسف يستلنا نحريس واسع عليه الرحيم الدومي سو قارسيه كودون نحريسي سيو نحريستا مقدمة وهذا الهربع كتابك الحمد لله رب العالمين ما هد ما أنت لله إلهي بيسكله الحمد وحي علماء والثناء بالجميل وإن إلهي لو أمانه وناك الحمد ما هد ما أنت لله إلهي بيسكله رب العالمين إله عالمين تكبر بارين نعمديسا لما أنتو أيو نعمية كوغل الله يستن نعمديسا هدان النعمة إلهي كركو أهان لهين نوي هلاكسم إلهين أو باب إلهين وحد عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان لهم أمانان ومد وحي يستيلبا أمان فأما الأول فقد ذهب أمان كي هراء أوتغي وأنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما كان الله معذبهم وأنت فيهم بإلهيني إلهي مع عذابي أدوى كل حشرة والاستغفار وبقي الاستغفار بول يا استغفار تباهر وما كان الله معذبهم يستغفرون بإلهيني والصلاة أمان أنا وجد عيني لهين أمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي والسلام عابي النقص يوردن إن لقنا بدقليا على أشرف الأنبياء هاتو نبيذا كي شرفت بدنا كركيسة هي والمرسلين رسول الله هل كان وحي نوكل قاضي نوكل الشيقي الأنبياء والمرسلين نبي ذي الرسول ذي علماء مركي النبي يا الرسول كلا فرقين أيان وحي تلمامين توجيهات فربضان هذا لا بدن بيكلين جمهور كعلماء وحي الشيقان إنه نبي يهي نين بشرة أو بل إنسان كمذا رسول كنينو يهي نين بشرة أو بل إنسان كمذا قبل إلهي مدرين وحديري رسول بيهاين هي أنبياء لما أنتوا ترك بيهاين إلا رجالا نوحي إليهم بإلهي من أهل القرى وحلو وحي ودي الرقم قالوين ككذا شيء هل كصفة قود وحي شاقينون يهينين بني آدم رسولك وحي لهذين وحي الله ديري قولك قالاه ويساق بيني سي نبي قال وحي الله ديري قولوا مؤمنين الرميسان وقولك جمهورك أيمرين لكن صح معها علماء قالوا وحي لهذين ميئة نبي وحي لهذا نين لو وحيودي وحي أو آن لفرين عد قارسيبا رسولنا وحي لهذا نين لو وحيودي أو لفرين عد قارسيو وتوجيه اللبات توجيهها سنة صح معها توجيهها سدحات علماء قاربا مري وحاني لهذين نبي يا الرسول لبضا بوالا دري هرتا لبضا بوالا نين ريب بني آدم أو لو وحيودي أو عد لو دري لبضا بنا والا دري ميدان لا دري نين ايش مجرو آيات قرآن ويد ليشدين إلهي سبحانه وتعالى وحيري
سورة الحج آيات الله بيكنتونات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلهي وحول وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي محمد وهرتها رسول ما نديرين ولا نبي نبينا ما نديرين استغنى مركا الله بضا بين لدريب هلقا كعد إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا مركو آخرية قرآن كي لو وحيودي شيطانك وحبو كل احتورا قرآن كان كدمنا إلهي وكساره فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إلى آخر الآيات وانا قولك وقص احسن وقول دوين لوك لفرقيه رسول يا النبي لبدبا waa la diray laakiin waxay ku kala duwan waxay tahay rasuulkana sharci mustaqil madax banaan baa loo dhiibay nabiguna wuxuu xoojinayay rasuul hore sida isu ahaayeen nabi Muuse iyo nabi Haaruun nabi Muuse wuxuu ahaa rasuul isaga si mustaqil loogu waxyooday Haaruun wuxuu ahaa nabi u gargaaraya anbiya fara badan oo isu gargaarteen oo aragnay oo loo diray reer bani Israa'iil qeyrkood سيدا وجيد بخاري وحو كبري أبي هريرة إن الرسول كده عليه الصلاة والسلام كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك النبي خلفه نبي غير بني إسرائيل أنبياء يسبت بدليس مركز النبي بنت النبي كلايمني يدبدي ساسي هاي قال وحو يلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحين إلهين أمانو عيب كبد بادية ويديننا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله أهل كيسا أهل كيس النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبا تفسير با لغو فسيرو لبدو اسم ديديان waxa lagu fasiray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qaraabadiisi waxa kale lagu fasiray cidii diintiisa raacday ee rumaysay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam marka uu ala alihi inaguna way soo gudgalina labada macnaba wa sahbihi ya asxaabtiisi nabi maxamed asxaabtiisina ilaahay ha amaano ceeb iyo naqsi ba ka nabad galiyo saxaabina waxa la yiraahdaa culimada ahdeen man laqiya بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة قفك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستقى مؤمنا لكل مي وصدا كل انتي قال لي بوحو دحي ساداي دونتي واحد كده ضد وقت جي رسولك صلى الله عليه وسلم نولا او رسولك ان ارك علماء قال waxay ku fasireen qof rasuulka arkay oo indhaha saaray dadin dhalaba jiri oo rasuulka aan arag oo indhaha aan saarin waxa kamida ibn maktum وين دلاه رسولك ما أرجو عندي سمو صالين مركب واحد ليه عدي النبي قال لك كلنتي ويا عليه الصلاة والسلام ولو يندها صارين به إمام البخاري بس صحيح الصداق قيحي أو كفسري وحيدي أجمعين الدمان تود يجري إلهيها أمانه عيب ينقص بها كن متقليه ولماذا أهل السنة كتبت عقيدة دي كتبت قرية أصحاب الرسول كيكو أمانة ينفر بدن سببتي أصحاب الرسول كو أمانة يا نوحي تاي لا بقولوا أي أصحاب الرسول كتبت هذا كو عيدا قالوا ذا كو بدو قال هذا النواسبتي خوارجته قولada labaadna waa qoolada leexda shiicada labada qoloba way caayeen asxaabta rasuulka sida ugeed bay ahlu sunnah way amaanaan asxaabta rasuulka ridwanullahi alayhim amma ba'du inta kadib buyi kelmad amma ba'du culimada qaar ba waxay yiraahdeen fasl khitaabkii nabi daawud la siiyay weeyaan ilaahay wuxuu wa aataynahu alhikmata wa fasl alkhitab waxaanu siinay xikmada iyo fasl alkhitab fasl alkhitabkii weeyaan bay yiraahdeen waana waxyaabaha luqadda carabiga ay la gaar tahay hadalkii hore laga guuriyo hadal kale loo guuriyaa qaal wuxuu yiri ففي دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إلا دكتور دغو نبي محمد تلماميسي عليه الصلاة والسلام يا وسيرته سيرتي يا أخلاقه دقمديسي وحكتشر فوائد كثيرة فائدين فربضا من أهمها وحقومهم سن كو تحقق الإيمان به صلى الله عليه وسلم إن رب لقد شيئا رسولك صلى الله عليه وسلم رميت الرميسيين فإن الإيمان به عليه الصلاة والسلام رسولك الرمين الرميسين هي مستلزم وحي لازم سنيسا أو أي كان سنيسا للإيمان بصيرته إن رسولك صلى الله عليه وسلم سيرته سيل الرمي وصفاته يتلماميسي وشمائله رسولك صلى الله عليه وسلم رقمدي سي فيعنا يطبعي سي وناكسنا شمائل وحي لهذا مفرد الشميلة waxaan idhaahdeen waa akhlaaqda iyo xisaalka iyo tibaaca wanaagsan waa dhaqamada iyo laamaha wanaagsan ee qofku ku sifaysan yahay waana wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku sifoobay ee akhlaaqaha ee rasuulka ku xiriiray ee uu gaarka u lahaa rasuulku alayhi salatu wasalaam akhlaaqduna waa akhlaaqihi uu yiri waa jamcu khuluqin akhlaaqduna waxay idhaahdeen culimadu waa badlu nada wa kaful ada wa talaqatu alwajh in dheefta dadka loo huro dibkana laga haysto wajigana loo furfuro waaba intaaba siirada لغاهان وطريقة دي حالات دو الشيء كسوغاني اصطلاحها وحي علماء كويشيين سيرة إن لا يلاحظوا
وذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن الشيء النبي محمد حكسقنا ومن الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية إلا الشيء رسولك صلى الله عليه وسلم هذا الذي يدغ مديسي يوحيابه عيد قرأ رسولك عليه الصلاة والسلام يتلمامه رسولك موقتي إلهي يكو أبوري يتلمامه رسولك صلى الله عليه وسلم يدغ مديساها فإذا لبعض حجري هل كان صدح باسي قرآن صمح رقم 3 لبا كدغ هل كوات اللبات ولا كدعي قال وحيدي لبا وكذلك زيادة محبته عليه الصلاة والسلام سيرة وحا كلن كفايديسنينا رسولك جعيل كيسو انو نغو زيادو صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في النفوس نفهنا انو وينير رسولك صلى الله عليه وسلم جعيل كلا جعيلي هي نفهنا وينانتو كوين يهبين زيادة رسولك عليه الصلاة والسلام كلما زادت محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مركز توي كردو جعيل كادونكو نبي محمد جعيلي عليه الصلاة والسلام دل ذلك تاسوح كتستا على صلاح إيمانه إنه إيمان كيسو هيكسين قفكا واستقامة دينه يدين تيسو إني توسنتهاي وآني اللي يحسنين صدح وأن في تعلم سيرته العطرة وحكى له كسوغا برشد لبرتو سيردي سأدقون رسولك عليه الصلاة والسلام وشمائله الكريمة يا رسولك صلى الله عليه وسلم تلماميس ونكسن بناء منهج عام إنه اسمه منهج جود عند المسلم قفك مسلم كأه منهج كاسو عامر بالخير والصلاح كاسو كعملا خير يهجاج والرفعة يسرين إذا ارتسمه واحتداه في شؤون حياته هديه رسولك صلى الله عليه وسلم كضيده أو كعلامة صدق خير نلشي سأردن أو قفك مسلم كي نلشي سأردن أي نقطة مذ رسولك كضيده عليه الصلاة والسلام طريق يسيو مرة وربى عليه أبناءه أو كربايو أو كبر باريو أبد كيسة سيرة رسولك عليه الصلاة والسلام والأجيال من بعده فعاع كدن بيي من دونا يسجد بدي إنه كسر ربايو مركو وش يجددك أما عشان كل دوبه أما كتابه كقرآن عدي كدن بيسد بدي إيمان يسي ويكون ضياني أنا طريق يسي مريان وحوش هل كان صدح فائده أو كم ده فوائد سيرة رسولك عليه الصلاة والسلام هل كهوسة لما بركوه حقوق بتوحوري راجع مقدمة كتاب شرح الشمائل المحمدية لشيخنا عبد الرزاق البدر فقد ذكر فوائد عديدة في دراسة شمائل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وحضرنا قد تابولي هرنع كتاب كشرح الشمائل المحمدية واللي هي الضوبي عبد الرزاق البدر أما اللي في القري وحو كل شيء يقول فائدوين واوين أيوه رسولك صلى الله عليه وسلم كضي شديسة ليفت اللي اليوم فوائد وحكم إذا هدان النقضي وحكم إذا بوير هدان في صومالان كد المرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كضي شفي عن بين أوجس جناتي عقيدة دي عبادية أخلاق دما وحكى كم إذا بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي جيسي توصناه لوجود ضيده وح كتير تبو يري ميزان عملنا الحاد كذي وانا جود لوجو جانيو وحكى كم إذا بو يري إن الدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهم لفهم أيوه أما عاوني نقول عاوني استو إن نفهمه كتاب إلهي وأي رسول صلى الله عليه وسلم كتاب إلهي طبقي شدوا كلام وح كتير تبو يري إن الدراسة سيرة رسولك عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كينو كحيل ديرانية شعيل كنبي عليه الصلاة والسلام وحكى له كتير تبو يري إن إيمانك الباب سيكفر ميانا كوس زياديا وحكى له كتير تبو يري قفك مسلم كأوحي فانسين سيرته عقيدة يا عبادة يا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له كتير تبو يري سيرة رسولك برشاد الله برنا الدعوة إلى الله على بصيرة قفك إنه دين تدك وش يجي يسقوا علم وله نبي محمد حكى له بحيا سيرة دي سبولي وحكى له كم يدبر سيرة النبي يقول لك فايدي سنة يا أبو يري إن يتهاي علامتها نبي محمد وحي إليه مدبا كمدا وعلامة وين أو لو قرنا يا خير يا صلاحة وحكى له كم يدبو يري وباب أما الباب وين بركيسان أو فرن قفك مسلم كأه إنه نبي محمد هدي يسك قاله وحانو كه لي بركوين يا خير فربطن وحكى له شيء إن سيرة رسولك اللي جه ليه لقد فيه صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كاهن ولا شيء سؤالا إنه ورث يا خير يسرين وأنو ليدنين لباتك استوكل على قفك مسلم كاه يا مصيبة كستي يا آفة كستي ابتلاء كستي إنه كبح يمرون سيدي رسولك صلى الله عليه وسلم يا مركي مكان لو قل بي إنه كبح مدينة رسولك ويجرو دي كدمنا وبوت لي دون الإسلام كوندا كتابكم صون قهدما قال وحول ولما تقدم وحي نوصو هرون مرو من الفوائد القيمة فائدوين ووينة والغايات الحميدة وشدوين لما هديي وغيرها غير كذبة اجتهد العلماء وعلماء وحي كده دالين
في جمع شمائله صلى الله عليه وسلم إن أروريان تلمامها رسولك يا أخلاق ديس يا رقم ديسة في مصنفات خاصة كتب قاربة كقرن نبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم ديسة قاركود سيد الإمام الترمذي أوكله الشمائل المحمدية كتاب لا كقرن ولماذا قارنا كتب شمائل وكقرن أو في فصول أما واحد كقرن بيجي فصل يوم قيبة ضمن مصنفات عامة كتيرة كتب جود يقرأنا واوين سيدا كتابك الجواب الصحيح أي كتب يريد نحكي أنا مفصول قيبة كجوهر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم التلماميسي وكان من جملة هؤلاء العلماء الأجلاء وحكم ذا علماء واوين شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ إسلامك أما مسلمين تا وأبو العباس الأولنشري وكنيو وحب ضم لين منو كرسني شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنه جمع وحوروري فصلا نافعا فصل دافله مفيدا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فصل أما قيبتاس دافت له وأدونك فائدة له فائدة سؤال يرين وعكور الكتاب كسر لهذا الجواب الصحيح جوابتي صحضة هيدي للسيول لمن بدل الدين المسيح كو بدلي دينتي عيسى بن مريم عليه السلام ذكر فيه وحكو شاقي جملة مباركة قيب ونكسر خير كذو فربدني ومن النصوص أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الكريم تاسو كتو سيسا عدين لعدين أيو تلمامه نبي محمد نبي ونكسنا عليه الصلاة والسلام ولأهمية هذا الفصل قيبتها مهمة يقيمها إلى ذي وكبير نفعي يدفتي وين ذي وين تيوغي أحببت وحن شعلاذي إفراده من كسا قارينه في هذا الجزء اللطيف قيبتا يرى ونكسن ليعم نفعه بين المسلمين سي أي أقود يشو دفتي المسلمين تأردن أما الحدودة فيقرأ في المساجد على المصلين سي الله قد الله خريو ضدك تكنية مساجد كتكنية ويدرس في الدورات العلمية على الطلاب يصل الله قد دورات كعلمية أرضيدا فإن مؤلفه شيخ قاري كتاب رحمه الله قد أبدع في جمعه وحو وناتيو قرحيي أرورنت أروريي وأحسن في اختصاره وانو وناتيي كوبدو كوبي وعامة ما ذكره من النصوص بدن كأدلة شاقي مما اتفق على إخراجه شيخان أو أحدهما ووحيابها يسكوا وافقين سوساري ديسا بخاري مسلم أما متكمدي نصوص انت هذا بدن كل قد ما انت هذا بدن بخاري مسلم يسكوا وافقين ومتفق عليه أما بخاري ما صوص عليه مسلم وكان عملي أنا وحن كقبت يوحي يبوري أني قابلت هذا الفصل قيبت أنت سوق عظيما بربر دقي مع نسخ المطبوعة الكتاب قيبها لطابعي أما مطبعه قيبها يطابعين كتاب كاملة ورجعت وحن الله بطين كدبنا لأصول هذه النصوص نصوص تاو الشيقي أدلة تاو الشيقي أصل ذو ذيبان نقضي بويري في مسادرها من كتب السنة ما لها يكسوا في لأن كتبت السنة بخاري من ديبو نقضي مسلم من ديبو نقضي كتبت من ديبو لابطي بويري وأثبتت الإحالة لها في الهامش وحانا أصغي إن أؤيليون هذا النقطة هلك يره وسي هامشك حتى تصور ركتو حضرك سالك وسينكو قرأي أخرجه البخاري أخرجه المسلم البيهقي ساسو كالعدي سوسارتين وما كان منها في غير الصحيحين وحي أنا هين وحي اللي قوري كتابك بخاري مسلم صحيحين كان لماذا كتاب ذكرت ما يبين درجته وحن شاقي وحضيني درجة ديسا شيء بخاري مسلماني ورين يا سي حديث واحد لقى بين لقى شكيه مركا waxaan sheegay inuu darajadu leeyahay ma saxiix ba ma daciif ma hasan ba an ahli ilmi ana ka soo reehal ilmiga al mu'tabarin fi hada shan kuwaaso looga dambeeyo arintan ah tasxiix iyo tadciifka وبينت معاني بعض المفردات الغريبة waxaan cadeeyay buu yiri kelmadaha adag qaar kamida macnihiisan cadeeyay al waaridati fi an-nass taasoo ku soo aroortay xadiidka rasuulka kaleey salaatu wasalaam ليتيسر للقارئ سيغفر ذات غفر آخرية فهم المراد منه وتشيدد اللي فهم كو فهم يوالين تأولين ونسأل الله إلهي وحي ويديساننا أن يجزي المصنف شيخي قري كتاب كينو كأبال مريو خير الجزاء أبال من تقو خير بدن
وأن يجمعنا به يين نقول رياء ونجيو نقول كل مين نجي يستجب في جنات النعيم جنوين كالنعموين كله وصلى الله على نبينا محمد أما نوحين ويدين إله النبي محمدها وعلى آله وصحبه إهل كيسي أصحابتي سبين ويدين انتبه خالد بن عبد الله وقريش شيخ هذا الله دم الدافع شيخ كتابك قري اللي في كتابك الجواب الصحيح كتاب كان آخر سنده وأنا لقى سؤال حساري وحل هذا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ما بيعيش حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وحل شيء أيدي أيد وحول شيء لحب قولي كوبي لحنا كي جريده وعلماء قاري الشيئين يكون بيجنت هاي كوني لا أبو قولي يصدق يو لحدن كي ميلادية تاريخ ده بين أبورك قال هذا وحشاخو وكل انتي مقالة دمشق شام تضرب قولي يسديد لو تنكي جريده وكوب بيجن كون صدق بقولي يسديد لو تنكي جريده قرن جيت الضباط بكل عيا شيخة نولشي سي حياتي سو قرن جيت الضباط بكل عيسان كتب فربضن بو اللي في شيخه وعكمد العقيدة الواسطية وعكمد كتبته قريفته الحموية الكبرى وعكمد العقيدة التدمرية وعكمد درء تعارض العقل والنقل كتاب كلا هذا وعكمد الجواب الصحيح لمن بدل الدين المسيح كتاب كان يبرد كم ذي مكدجان دونه مؤلفات كيسو آد بفربدين وحنا نقول لي رسائل فربضن وقري يجوابه في كتاب هذا مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية وسديد يصد المجلدات تضبيه صد المجلدات وكتاب كوحي وشيخه يريئه يوم مجلد كقدم بيو فهارسه دليله كتصي كتابك هذا لازم يلاقي كجيران شيخه إمام بوكوها علوم الشريعة أوردن وحوها عالم متفنن فنكم مقارهين هذا ذاك التفسير هذا ذاك عقيدة هذا ذاك حديثك هذا ذاك أصول فقه هذا ذاك اللغة العربية علوم الشريعة علم كستولة تابت إمام بوكوها بل وحل تلمامي علم كستو علوم تكمل الشيخ بوكوها عد كستو قرنيسا هذه اللي حين لقاه نولا كوجو علمك بدن علمك قرنية فنك يسوي وس علم بدنا بل وحل الشيء حتى عقائد فرق أي ليه إنه يقع علم بدنا وفرق أنت يسقط أنت ما دان شيخ الإسلام تيمية يكون إنشرين نكلاسان كايجا مسألة أمسن أو كلاساري تلو كوكان 20 أرديدي سؤال بيفرق بدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرديدي سلوى معروف وحكم ذا أرديدي ابن القيم شيخ هذا وحكم ذا إمام الذهبي وحكم ذا ابن عبد الهادي شيخ هذا وحكم ذا ابن كثير الدمشقي شيخ قريت تفسير القرآن العظيم وأرديدي ابن تيمية وحكم ذا ابن رجب الحنبلي رحمه الله وحكم ذا ابن المفلح شيخ هذا كم ذا علماء واوين حنابلة روايات كل مذهبك أبيه عبد السلام يسوون الشيخ عبد الحليم سنة الشيخ بوها يسنوح ودنتي لحب قلي اللي سديتنكي هجرية أووجي عبد السلام سنة الشيخ بوها وشيخ مسودة له كتابك منتقى الأخبار كلا يرثو شيخ لويان شيخ الإسلام ابن تيمية علمي جسمك سوف ربنا ضد بدون حاسدو يا شيء كدب أنت مدحوينها وتجين بي ورر ورر دمشق بالغ حنين لحب قولي يسرح يسرعش هجرية مصر بوتك شيخه هذانا مصر بالغ حنين تضاب قولي شنتي هجرية هذانا مر لبعض الجوع اللي يشيل كلا بس إنه كتب لي شوقي تضاب قولي تضابدي هجرية هذانا مر صديحات بالغ حنين هذانا مر أفراد بالغ حنين تضاب قولي يستقالك هجرية سيدي بوحدنا شيخه لما سيدينين إلا وتضاب قولي استيد لو عتنك هجرية وكل انتي قلعة دمشق وهلك لغو أسير رحمه الله تعالى وحال شيخ الإسلام ابن تيمية دي وحوها علماء واوينيه أهل السنة ننكي لورنشري محمد غازان تترك هايستي تتارك وان ميكي منغوليين هاي مسلمين تصوبوا يرضي لحب قول لي لحيو كنتم كيشن لحنا كي جريدة ميلاهاس waxay soo weerareen muslimiinta Iraq bay soo agdegeen way gali kari waayeen way furan kari waayeen aad bay u fara badnaayeen 10,000 wax ka yar gaadmo may tagi jirin markay weerar qaadanayeen 80,000 iyo wax ka badan baa weerar qaadi jiray waxay soo degeen caasimadda muslimiinta oo Iraq ahayd Baghdad markaa ahayd way furan kari waayeen way gali kari waayeen kadib nimanka shiicada baa dhagar qarsoon sameeyay madaxweynihii muslimiinta u tageen khaliifada xilliga muslimiinta haysatay waxay ku yiraahdeen ciidan ka dhin si ninkaas uu soo galo qabsay doonayeen isla wuxuu moodayay inuu naseexaynayaan
lacagtu way yartay dakhliga ciidan ku baxayna way farabadantii binahay ciidanka dhin ciidanka sidoo u dhimiyay wax yar baa ka soo hadhay boqolaal kuma heen askarta muslimiinta wax yar bay ka soo reebeen boqolaal bay ka soo reebeen 700 wax noocaas ay ka soo reebeen say u baabiinayeen haddana way furin kari waayeen nimankii tataarka ahaa Baghdad way soo gali kari waayeen nimankii shiicada ahaa haddana waxay ku yiraahdeen intii u tageen madaxweyne muslimiinta haystay idinka iyo nimankan tataarka ah dhex galina heshiiya ha iska noqdaan iyaguna waxoogaa lacag oo laaluushana siiya dabadeeto nimankii culimada ahaa iyo sulaxadii iyo wasaaradii soo urursaday ninkii madaxweynaha heshiis marka la saxanayay wax la soo kaxiyay moogtay dadka madaxda ninkii bay u tageen uu duleyn halkii ugu dambeysay waana ku isdiisaay bal waxa la sheegaa inay soo noqdeen iyagoo aad u liita lacagna uu ka doonay qasnadihii qarsoonaaye muslimiintu ay lahaayeen buu soo furay dahab iyo lacag wixii ku jiray buu keenay markuu soo hordhigay uu damcaynay dib uga noqdaan ayaa wuxuu yiri iyagana laaya amiirkoodana hadilina intaad jiifisaan sida aad ugu tumanaysaan aad ugu joogjoogsanaysan nafta kaga saara intii madaxdii iyo culimadiina qoortii ka gooyeen amiirkiina sida ugu tumanayeen bal ka waran 80,000 oo askariyo lagu soo daayo wala tiira sida ugu tumanayeen naftay kaga qaadeen sidii ku dhintay Baghdad bay soo galeen muslimiintii bay laayeen ibn Kathir wuxuu yiri fi al-bidaya wal-nihaya waxa lagu qiyaasay muslimiinta laayeen 800,000 oo qof milyan iyo 800,000 ma yeel 2 milyan bay culimada qaar sheegay ibn Kathir 2 milyan oo muslimiinta kamida bay dileen ibn Kathir saddexda qowlba culimada yiri qaar 800,000 qaar milyan 800 qaar 2 milyan oo muslimiina maanta laga takhalusay wabiyada mara Baghdad dhexdeeda intay soo qaadaan muslimiinta soo jiidaan bay ku gowracayeen wabiga ilaa uu dhiig rogmaday kutubtii muslimiinta xilliga taalay meesha oo kutubtii xadaarada muslimiinta waxay ku gureen wabiyada ka talaabiyeen intay soo gureen makaatibtii oo dameeriye farda ku soo rareen bay ku gureen wabiga ku gureen ilaa uu buuxsamay oo kutubta ka soo sareysay say ka talaabeen wabigi oo ka soo talaabeen muslimiinta ay soo gudbeen dalalkii kale haysteen Dimashq bay soo agdigeen waatay dhacday waqacadii la oran jiray Aynul Jaalut 700 iyo waxay dhacday 860kii hijriyada Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah waqtiga 7 jir buu ahaa kamu qayb galin qaar kamid nimanka ahlul bidaa xisbiyiinta tarwiijiya in meel kasta la dagaalamo la qarxiyo ayaa waxay dhahdeen Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah Aynul Jaalut buu ka qayb galo amiirkiisii uu khilaafay muu ka qayb galin 7 jir baa wuxuu ka qayb gali doonaa ma soo gaadhin 7 jir buu ahaa 7 sanadood buu jiray waxaan inoo Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah ku dhashay meesha la xarraanna waxay ku taallaa Turkiga culimada qaar waxay dhahdeen dad Carab dega oo Carab qaar waxay dhahdeen waa Kurdi saawgeed Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah ma Kurdi buu ahaa mise Carab buu ahaa laba qolbi culimadu ku leeyihiin waa isku khilaafeen waxay soo degeen Dimashq afkeedii soo degeen nimankii tataarka ahaa waxaanay dooneen inay soo weeraraan oo meesha yimaadaan ninkan Maxamed Ghassan la oran jiray wuxuu kamid ahaa ku islaamnimada muujistay tataar kamid ahaa Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah iyo culimadii waqtiga madaahibta qaar kamid ah loo diray oo la yiri bal nagala soo hadla ninka way u yimaadeen markuu Maxamed Ghassan Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah soo arkay ayuu ka haybadaysto intuu ka durkay halkan soo fadhiisay agteeda adigu uu soo fadhiisay Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah dabadeeto waxbuu soo jeedinay talooyin oo Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah khilaafi ma saha sameeyeen bu kulaha dadkii la socday wadaadada way baqanayeen iyagu hadal kami horkeen kareen cuntas u soo sameeyay wadaadada cunta loo soo sameeyay markii cuntadii la soo hordhigay hilib baa ku jiro Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah wuxuu cuntadiina cuni maayo waayo cuntadiinu waa xaraan cunideedu waa xoolihii muslimiinta soo dhacdeen soo xadeen buu ku yiri xaabadaad ku kareysayna waa dhirta muslimiinta buudi idin mana banaaneen saa sameeysan cuntadiina markaa cuni maayo xaraan bay gatay Maxamed Ghassan muu taaban Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah kadib wuxuu ii ducee hadaba waan iska noqonayaa Dimashq gali maayay ii duceeyay dabeeta uu duceeyay wuxuu Ilaahay adoonkaagaasi haday islaamada sunkatay oo jihaad uu soo baxay oo inay kelmadda sareyso uu soo baxay Ilaahay quwee hadii beentii ay tahay oo uu soo baxay kibir iyo istusnimana Ilaahay dhabar ka jabi Maxamed Ghassan wuxuu lahaa aamin wadaadadii la socday Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah madaahibtu waxay yiraahdeen qamiisyadan saa urursanay yiraahdeen annagoo isla dhiigiisa ku dooli doona Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah dhiigiisuna ma doolin dibna u geysanin way soo noqdeen dhexda markay soo mariyaan in yar ka soo baxeen bay yiraahdeen wallahi waxaad ku dhawaateen inaad halaagto wada kula marmayno waxaad qof naftiisa halaagaya Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah wuxuu ku ana wadada la marmayna kala kaxeeya laba waday soo kala mareen Dimashq meel ku soo noqonayeen wadaadadii kale
niman shuftaaba dhexda u galay cuntadiisii way ka qaadeen fardihiina way ka qaadeen mariyahay gashanaayeen oo ka bixiyeen xitaa iyagoo cagaagan bay soo galeen magaalada Dimashq Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhankii uu soo maru ka soo galay qabiiladii dhexda deganaa oo dhan baa soo galbinayay oo fardahoodii iyo awrtooda ku soo galbinayay wuxuu soo galay magaalada Dimashq iyadoo moodid boqor ama madaxweyne ayuu soo galay oo qof kasta uu duceynayo oo amaanayo rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'an waxay yiraahdeen wuxuu la kulmay 700 ee hijriyada malika loolan jiray Maxamed Ghazan wuxuu ka qayb galay kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dagaalkii loolan jiray macrakatu Shaqhab ama as-Sufar nimanka tataarku marka way noqdeen mar labaad ay muslimiinta ku soo rogaal celiyeen waxaanay doonay inay Dimashq qabsadaan boqor Maxamed loolan jiray oo haystay Masar baa soo baxay isna wuxuu soo kaxay 200,000 askari oo ciidana halkaas la isku haleelay waa halkii tataarka lagu jabiyay Sheekh Islam Taymiyyah halkaana waa ka qayb galay culimo fara badan iyo sulxa fara badanna waqcada ama qaswada Shaqhab loolan jiray way ku dhinteen waana tii lagu jabiyay nimankii tataarka loolan jiray ee ugu dambeysay ay ku dhinteen ay ku baabeen waxa loolan jiray boqorkii Masar xilliga haystay ee muslimiinta suldaanka u ahaa reer Masar Maxamed ibn Qalawun baa loolan jiray qaa'id buha ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qoyay muslimiinta 200,000 askari buu watay nimanka tataarkuna waxay wateen 80,000 askari 120 muslimiintu dheeraayeen way baabiyeen way baxsadeen waxa la sheegaa Maxamed Ghazan ninkii uu ahaa qaa'idka oo magaciisu adkaa qatalu shah baa loolan jiray magaciisa markii uu ku jabay waqcad Shaqhab uu noqday wuxuu ku noqday ninkii tataarka haystay waxa la indhuhu andhufka wuxuu ku dhawaad fashilisay ka tag dilay buu gabigiisaba muu dilna markii dambe iska cafiyay in yar kadib ninkii waa dhintay tataarkiina saasi ku baabeen dawladda muslimiinta markaa u talinaysay Masar iyo meelaha waxa la jiray dawladul mamalik baa loolan jiray dad badan ee dulmi badan iyo xadgudub badan bay ugu abtiriyaan laakiin in far badan sunnada iyo ahl sunnaha ay u gargaartay gacantooda Ilaahay wuxuu ku jabiyay subhanahu wa ta'ala nimanka tataarkaana laba qolada dabada ka waday qolada kood waxay ahayd qoladii saliibiyiinta ee gaaladaha ee kristanka qolada labaadna waxay ahayd qoladii loolan jiray shiicada oo mar walba iyagu muslimiinta jabkoodii hoggooda ka shaqeeya oo aan khayr wadin muqaddimadaas insha Allah ta'ala maanta ku diin doona iyo hordhaca kitaabka bari insha Allah way bilaabi doona kitaabku wuxuu socon doonaa maanta kale sabtida iyo bariyo kala axad insha Allah iyo saad dambe isniina sadha ay socon doona kitaabkeena thalath usulna labada cisha dambe socon doona subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk